bini'aadantinimadu waa qayb ka mid ah jiritaanka ummad kasta oo suubsan sidii inis garab qabsada lahaayeen dal kastana waliba leeyahay barbaar iska hirin oo inis kaalmayayaan sidii lanku bahalahay dhibaato kasta oo wajahda beledka Muqdisho ee caasimada dalka iyo waliba geega barnaamij lanka kaalmayo dadka saameynta quality abaaro oo ka qobadeen barbaar midayti walbarashada oo ku wada nahayn abaaro ku jira qayb kumida gobolo dalka Cabdiwahaab Suudi Nageeye Maryama Maxamed Shiiqo iyo Raaga Xasan oo hogaamiyayeen kahiinlanku gurmudow dadka abaaro saameeyeen iyo bulshada Soomaaliyeed sheegan inay lambaahanyi gurmud degdeg ah guddiga adeegyada bulshada abaaraha ayaa maanta waxaan bilownay inaan aruurino dhaqaale aruurin loogu gurmanayo dadka ay saameeyeen abaaraha kala duwan qornaantii maalinta ka dambayso ayaga iyo xoolahoodiiba saameyn kala duwan ay ka soo gaarayso ololaha maanta wuxuu ka bilowday suuqa bakaaraha iyo wadada weyn oo Baka Al-Mukarrama maalmaha soo socdana hadii alla idmo sii socon doona wuxuu gaari doonaa goobaha waxbarashada sida jaamacadaha iskuulada masaajidada iyo qaybaha kala duwan ee dalka uu ka kooban yahay runtii saakay waxay noo ahayd subax qeyraysan oo dhaqaaq fiican sameynay shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan ololahan si aan ugu gurmano dadka Soomaaliyeed ee kale dhalinyaradana waxaan ugu baaqaynaa inay ololahan si gaar ah qayb ay uga qaataan hadii ay noqon lahayd tabarucaada iyo aruurinta dhaqaalaha intaba si aan ugu gurmano dadkeena Soomaaliyeed naftooda iyo xoolahoodiba ku weynayo abaaraha dalkeena qaybaha kala duwan ka dilaacay marka annagoo abaad u adeegyada bulshada ayaan maanta bilownay maalmaha soo socdo oo sii socon doona Allah hadii alla idmo insha Allah adeegyada bulshada ee gargaarka abaaraha waxay inoo ahayd maanta maalintii koowaad ee bilaabeyna ololaheena maantay runtii wuxuu inoo ahaa bilow fiican oo khayraadsan waxaan ka bilownay meel kala duwan magaalada Muqdisho waxaan rabnaa inaan sii wadno haduu Ilaahay idmo ujeedada aan ka leenahay hadafkan waxay tahay inaan ku caawino bulshadeena Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ay saameeyeen abaaraha iyo dhibaatooyin kala duwan waxaa jirta dad maanta u dhimanayo kabubiya ay cabaan marka waxaan rabnay inaan ka jawaab celino maadaama ay tahay mas'uuliyadna saaran qayb kamid ah hadaan nahay adeegyada bulshada maanta waxaan sameynaa runtii inaan booqano goobaha ganacsiga bajaajyadaasha dhammaan bulshada inteeda kala duwan waxaan rajaynayaa runtii inuu noqon doono barnaamij ku guuleysano hadaan nahay adeega bulshada waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inta imaqleyso in la daawanayso inay ka qayb qaataan barnaamijka aad ku muhiimka ah ha sugin waliga allaha inay hay'ad shisheeye ama wadan shisheeye inuu ka caawiyo adiga is caawi dadkaaga wax u qabso dadkaaga wax u qabso iskeena wax u qabsano anaga markaas ka qabsano runtii aan wax walba gaari karnaa marka inaan ka wada qayb qaadano waan rajaynayaa qaasatan dhalinyarada oo wax barato jaamacadaha dhammaan dhalinyarada waxaan rabaa inay ka qayb qaataan barnaamijkan oo noqoto hormuudkii barnaamijkan uu ku socon lahaa Rahmaan Rahiim saaki waxaan ku soo kacnay nabad waan shaqo galnay dhinacan ka soo bilawnay filashadana waxay ahayd ma garanaysaa meel iska caadi ah laakiin markaan shaqada galnay bulshada aan la kulanay dadkii waxaan kala kulanay wax khayr qabo insha Allah ma joojin doono maalmaha soo aadan waa si balaarin doona waxaan codsanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada magaalada Muqdisho ururada ardayda wax waliba inay soo link galayaan nala shaqeeyaan magaalada nagala shaqeeyaan waa si wada doona insha Allah bulshada ka nool beledka Muqdisho iyo taageeran dhalinyaradu insuranti sidii langalan qabada lahay dadka abaaro saameynta quality magacaygu waa Shaafiic Cabdisalaan Xasan oo jooga magaalada Muqdisho horta marka hore waxaan u mahadcelinayaa TV-ga Arlaadi oo ah TV hal mar soo hana qaaday oo lahjada maaga si fiican uga hadlay wax badan aan ka barahayno aad ugu hambalyeena aad aan u soo dhaweynaa inkastoo maaga aan fahmo laakiin kuma hadli karo insha Allah waxaan rajaynayaa mar dhow inaan ku hadlo hadii Ilaahay idmo barnaamijkan abaaraha hadaan soo noqdo runtii ummadda Soomaaliyeed abaarahan waa ku soo noqdeen xilliga jiilaalka markii la gaaro roobkana markii la gaaro daad iyo dhibaatooyin ayaa laga soo sheeganayaa waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay insha Allah in laga gudbo dhibaatooyinkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala horta marka hore aan barino haddaan anaga ummadda Soomaaliyeed nahana isku gurmano dhalinyarada ka shaqeynayso in dadkan loo gurmado oo wax loo qabto oo la samata bixiyo waxaan rajaynayaa oo codsanayaa waliba in la shaqeeyo oo wax allaala waxay rabaan lagu taageero akoonnada loo furo shabaabka loo furo dadka wax haysta ay akoonnadooda u furan dadka madaxda akoonnadooda u furan dawladdu ay garab siiso shacabku uu garab siiyo runtii ayaguna waa shaqo ay ka naxeen waxyaalaha yacni waa dad naxay oo u naxay dadkooda ay dalkooda u naxay gobolladii ugu barwaaqada badnaay maanta abaaruhu ka jiraan marka haddii Ilaahay insha Allah waxaan rajaynayaa in ayaguna ka bixi doonaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bixiyo
dhalinyaradun Soomaaliyeed iyo haayeen haano isyo inis abaabuleen aanas iyo ku qayb qaadayeen sidii dadka abaaro saameynta kuwaaladi iyo ku gurmada lahaayeen walina dhalinyarada ku shal tirsinyina jaamacado kiyaala dalka iyo oo fadahay antiyo kaalin weyn ka qaadaan intii dadkaas gurmad degdeg ah la soo bi Hussein Ali Geesi warteelka Arlaadi Muqdisho